meesha boorboorada lagu dilay ugu riiqahay odayaasha ergada lagu dilay xal yooga tagnay chiefkana ugu joogay kablogan ugu joogay away dawladda maxaa dawladda maxay xawis noqotay mis dawladda maxay noqotay dawladda faarax u shaqeys waxaan codsanayna RCU dhiisiga dhammaan inay dawladda arrintaayada si degdeg ku safargeliso waxaan salaamayaa beesha reebka meesha isku maatay 12 magaalo ka maatay Dab sub county iyo Liboya sub county meeshan maanta dhibaato dhacday ayaa reebka isku keenay dhibaatadaasna dhibaato reebka uu bilaabay ama uu asaasay meehna waa dhibaato walaaladana qoys walaaladana cawlahan ay sameeyeen ana farq oo baarwana kaado baaq bandiraha maadaama anaga mas'uuliyiinta cawlahan ka mid aanahay waxyaalaha dhibaatooyinka soo socdaan cawlahan kala tagiisii dhibaatadiisa ku socdaan inaan sheegno oo aan ogeysiino dawladda iyo mas'uuliyiinta cawlahan baa loo baahay ajenda ay ugu horeeyay maxaa weeye baaq maxaan u dirahayaa waaska cawlahan iyo owaasiinta sagaalaasha cawlahan iyo dhammaan beesha cawlahan dhibsidiisa markuu yar yahay yaa laga hortagaa cawlahan dhul kale ma jirto khaasatan anaga meesha la dhamaajaalay meel xuduudka dhamaajaalay dhexdeeda oo 10 kilo 9 kilomitir u jirto yaa laba magaalo oo qoyska reebay riixaws iyo ka sameeyeen شاب عبد الله يرادا من محل يرادا ما قانا لبعات مع الصور كلهم بعد الصور مجالي بعد كين دير كمان هادلين ومقالو وادو عوليان oo soo dagay meesha waa walaaladana cawlahan dhul ma kala leh sida daraad yar taawan maanaan annaga markasta maxaan diyaar u nahay cawlahanimada iyo midnimada inaan ilaalino qoys 26 sano meel degana oo maamul waxbaan ka rib oo meesha beero ku lahaa يا محستيسي الميسي البربري هانتديسنا لا ريبه عولان maxaan ka codsanayna waasiinta cawlahan aan ka codsanayna waaska cawlahan aan sheegayna arintan korta hadhow markuu dib ka weynaado tawataa waxa ma taras maadaama aniga hadda maanta meeshan aan imaaday waji bedelan baan u imaaday waxaan u imaadayna waa wax foolxun cawlahan maxaan ka codsanaa arintaayada si degdeg ah ku soo dhaxgalkaas asagana uu noqonin cawlahan daacad inuu istaago arintan gooshan la dejiyo waxaan kale u sheegaa walaalkay farax mas'uul baad anaga mas'uuliin baad ma aha markaad kursiga qabato in cawlahan fidmad xiisa ka bilaabato fidmada aad markaa soo gashay assemblyga cawlahan u dhisnaa dhexdiisa iyo gashay assemblyasha cawlahan maanta waxa salaamaya male geed baa ku kala xirtay waxaan ku sheegi cawlahan waa walaal cawlahan isku wadaadle qoys reexaws kiri MBUMT sagaalka daba cawlahan iyo Soomaaliya Dab sub county MBUMT walaalow haday kula qurxanaatay inaad reexaws kiri MBU noqoto jaabtida kaas weyn hadaad mas'uul cawlahan aad tahayna raggan aad meesha ee hubka heesto tilaabo degdeg waa inaad ka qaado cadeen maxaa weey xafiiskaada in maanta ma kastaas iyo maatida lagu laayay maxaa cadeen weey biigaada yaa inta barkay gaarigi boorboor ay wateen biigaada bankada ku jirtay afkiisa muxuu ka sheegay in biiga ana wakiilka chief ma hadli karo yoona ma hadli karo xafiis in biiga ku shaqeyn buu hada xafiiskaada cawlahan lagu gumaanay cawlahan lagu dilay cawlahan lagu kala fiijinay anaga dawladna ma sheegin ma anaga mas'uul cawlahan baan ku qabnay waxaan filaynaa cawlahan kan goomoon iyo kan kale iyo inaa xog qabato cawlahan inaa horumar iyo development u keentaan ka sugeynay أنا على الأسرة تقول لي حكستك قوتان سويني لكن قوس ريحة وسكريعة اسكو كوت عولها كان أحيسها في المية متقناة حبط أو قاعد أجلسه كمان في لنا أنت تدق جوابه أنا كهل حدي مسؤولين عولها أنت فرحان تاخذ دراي باخر محمد دراي دولة الكيان أنا ولي ما أركن غير الشرع الآن أو مكان له أو عن دولة أورجست جرسنان إني مقالة الوهستو شعب دولة إلى هدنا لوجمات aniga waliga ma arkin xafiis dawla dhaxdiiso inama taqaanay hantidii shacabka ilaahay lagu reebo dawladana ay firinas meesha boorboorada lagu dilay ugu riiqahay odayaasha ergada lagu dilay xal yooga tagnay chiefkana ugu joogay kablogan ugu joogay away dawladda maxay xawis noqotay mis dawladda maxay noqotay dawlad faarax u shaqeys waxaan codsanaynaa RCU dhiisiga dhammaan inay dawladda arrintaayada si degdeg ku safargeliso
sababtoo ah shacabkeeda in hoosteeda lagu gumaado ayadana ay fiiris maaha inta magaalada cawlaan ku dhex degay nin maanta cawlaan ishu gool u qulcin kara malaha dawladda maxaan ka codsanaynaa ciidan dhibaato badan baa loo geystay hantideeda la burburiyay hantideeda yaa laga dhacay gabdhaheeda ma taqaanaa yaa la dilay waxyaalaha foolxun aan sheegi karin baa meesha yaa ka dhacay waxaan codsanaynaa dawladda arrintaa inay si degdeg ah ku soo gasho tilaabana ay ku qaado cidda dembiga la'aan ay tilaabo ku qaado inta kale waxaan rabnaa annaga oon codsanaynaa oo meesha maanta aan iskugu imaanna wax dhib aan bilaawna annaga ma jiro maanta horaan dhib aan u samaynayna ma jiro haddii aan rabno inaan horaan dhib samayno oo raafgaab uu sameeyo hadduu damca kol raggan hantidiisa la burburiya la duugahay action bay qaadi lahayn laakiin waxaan fiirinaynaa waa dawladda waxaan fiirinaynaa waa cawlahan waxaan fiirinaynaa waa sharciga maa sharciga gacanta ku qaado laakiin qoys baa sharciga gacanta ku qaatee dawladda maxaan rabnaa in arrinta ayada ay action ka qaado jawaab degdeg aan helno maxaa soo haray fadhi baa jira liiday ka dhacay kulan fadhiga asaga anaga kuma kalsoonin fadhiga asaga anaga kuma kalsoonin codka raafgaab anaa ku hadlay si fiican dhegeysta fadhiga asaga waa jibis anaga ma tagayno cawlahan uwaaska cawlahan iyo sagaalaasha cawlahan gool hanoo qaadaan meel alla meesha ama dhidhaab hanoo dhigaan liboy hanoo dhigaan gaars hanoo dhigaan annaga iyo ciddan raafgaab iyo ciddan reexa ways wax ku kala maqan bal ha weydiiyaan laakiin kullan yaa gool la dhigi gooshi shalay ugu diraa ku soo fariiso aniga weligay ma arkin taa ayada maxaan u dirahayaa cawlahan goosha ayadana ninka qalqaalinahay walaalow maxaan leenahay waxba qarashka iska qasaarinin raafgaab goosha ma imaanay goosha أنا waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr qodobadaas oo ka mid ah meeshan beerahan iyo warahan dad baa qod yaa qod waxay qodan yihiin 26 sano wax dhow ma ah 26 sano ay qodnaayeen faarax mar buu dawladda soo galay haddana uu soo galay intaas dhib buu ku waday waxaan maanta xaawis iyo isku geenayo raafgab isku geenayane waa muxushmaha hadda kursiga ku jira faarax macallim faaraxow waxba hortadka isku leeynin haddii ka fursan weydane dawladda Kenya waxaa ka codsan xaawis iyo afgaab dhaxdooda in laga baxo 10 sano lagu jiray kursiga lagu jiray dad maana dulmeynin nabadgelyo culiyan ku tagnaa waxyaalo badan baa yaa culiyan ku dhaqmayay waxa maanta xaawis uu kala jarayso dhulka aw leedahay xaawis dhulka ay qaata ruuliyahan dhul la meelka jira ruuliyahan ma dhulka la marka adi aad raadinayso kuuraha maxaa u maanaysay dhulka ay degnaayeen hadda ku tilmaamaysaa maxaa ugu joogo kaan weyda intaas beelood baa dhex socotay waxaan ku sheegi walaalo macaanow kursiga waa lagaaga soo horeeyay 10 sano nin ku jiray 10 sano ku jiray ninka wax in hab yaraato oo dagaal dad u ka shaqeynay ma jirin maanta waxaad go'aamisay in turca xaawis iyo afgaab in ay wada dagaalaan taasna anaka diyaar baa u nahay raafgab beesha raafgab wax ka maqan maanta mal tawfiiq bal fadhiyan marka waxaan ii sheegi faaraxow colka ay cilaamaysa anaka noo imaan ku reen welcome assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh salaami raafgabka meesha joogo marka hore waa mahadsantiin mar labaad waxaan rabaa inaan ka hadlo xogta maqlab badan baan adduunka joogay wama malaynaynin in reer xaawis uu raafgab qaybsan waaba ceeb reer afgaab iyo reer xaawis baaba dariir baaba sababtoo tay reer xaawis iyo reer afgaab isku daad maaha isku taariikhna nuur cuburiye maalinka nirta walaaba jirro gardarada u qashay asagoo maqaabul iyo miyir walaal ogaadeen boqor ah oo la dilay wiilka xariga oo qisaasta boqor ku soo xiray markii la xariga yaa ka furi gabdoon guuleed ku soo gabdoon guuleed wiilka uu ku sheegtay ma ku soo buu yiri hay sagaal bari ugu soo awlaab uu sagaalka daba sugu yahay gurigiisa ninka 15 jir oo gadaal ugu noqdo gabadhoodina la gursayna hawga awlaab uu soo dhaqaaqay gabanaan oo ninka asaga dhacayara ahaa yuu yiri boqol geela iyo boqol ari iyo boqol la leedahay boqorka yaalla wayn dagaalku hareen buu wiilkii baa xariga ka gooyay warankiisii gaashankiisa ugu yiri wuxuu intuu sirco dhiman la sarxo boqorkii gabanaan markii dagaalka la galay oo ninkii gabanaan oo wax loogu talagalay ugaaskii dawladda isaagada wardabka iga waqtiga gabanaan ugaasoo windaan mood ugaas kaalkii baa lagu dilay maqaabul iyo miirwal maalinkaas boqor yahay waxa ku xigtay qabada boqor dhicis ee gabarada uu bixiyo dhicis buu saqal fuusiyay oo fata maxadii bixin bay tiraabo wiilka maxamed ee gaalan kugu barin ilaahay iyo reer afgaal qalacmay baan leeyahay qalacmay baa ciidan qaatay
reer afgaab ku soo duulay reer afgaabka la sheegay maama muxuu iga qaban buu kunnin oo duwaayo leeyahay oo ii duraba marka ay tahay ciidanka darawalkiisa Cabdullah Xasan ka soo dirtay geeli dareeray yaa waxa la yiraahdaa nooga baxa geel xerada si aan gabadhina aan ku wayn geelana ku qaad geeli dareeray xabad ka dhacdo markaasuu boqorku wuxuu xabad xagee ka dhici geel wali xirshito waxdaysay waa maamaada maqashay halkii bay nimankii waxa la yiraahdaa ninka markay gabdhuhu banaanka soo istaagaan geel xabadiisa dhageysanayaan gabadha ina ninkii la dhihi jiray boqorka hay reer afgaab boqorka maalinka waxa gabooga magan iyo ina dhismo yaa waxa la gabadha sii qaada gabadhana waa la keenay geelina waa waxa ku xigay maalinku marixaan gabarada keenay gabaradii waa la diiday boqorkoodina waa la diiday ingiriis maalinku yiri geel cawdaan baan shabad ku dhig baa ku xigay bara saabkeena waa la dilay geelina waa loo diiday sugan ku ilaa ya maalinka ay maanta dhaxdo taariikh reer afqabsaas ay bahaya boqor uu yaqaana cawliyahana kilkishaydan ku korin hayayo nin cawliyahana inaan la dagaalaan rabay ma jiro reer cawliyahana oonan u dagaalin oonan hoosta gashanayna ma jiro hadii cawliyahan darafkiisa laga soo galay ninka ku dhimanayo waan xilka ninku saaran yahay waan ma jiin baan qabsadayo siyaasad baan ku jiray baqbaqa wada ribays dawaara aan ku wareey waxa ma doonin wiilal baa waxay bartaan ilaahay baan wax ka sugay dawaara waxa ma doonanayo wiilasheedana shaqo waxay ka helayaan wadankii ayaga aqoontooda iyo dadnimadooda ku helayaan waxaa la wiilal cawliyahan ilma adeer baan cawliyahan dhacdadiisa ninka hargantidiisa ku dhacday codkiisa iyo haraatida iyo cadawga ku soo dhacay ninka dhintana waani dhax ku bari baad dhax ku bari ka dhaqsi waa tuulo yar oo gabar nimanka degana niman aan qayrsanaya maaha haddaad nabadgelyo ka dhaliso ragga warihiisa 25 sano jiro banaanka uga mari baan ku leenahay haddaad uga marin weydo dabayl markay soo dhacday nin bishii soo gacanta saaray ninku dhaxalkeeda dhibaya aniga maaha